بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel walba ay joogaan ugu hambalyeynaya munaasabada Ciidul Adha waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ku ciida bashbash iyo ciid wanaagsan iyo nabad iyo barwaaqo waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto ummadda Soomaaliyeed maalintan barakeysan inaan xasuusiyo muhiimadda ay leedahay in la iscafiyo muhiimadda ay leedahay inaan kulligeen gacmaha iswada qabsano muhiimadda ay leedahay inaan soo celino dawladnimada muhiimadda ay leedahay inaan ka wada shaqeyno amniga iyo xasiloonida muhiimadda ay leedahay inaan kulligeen ka wada shaqeyno dib u heshiisiinta muhiimadda ay leedahay inaan isla xisaabtano meelna uga soo jeesano musuqmaasuqa aafeeyay ummadda Soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii in dadka Soomaaliyeed aan u sheego inaan leenahay hal wadan oo kaliya wadankaasna aan ku khasbanahay inaan wada jeclaano wada dhisno wada aaminana inaan wada leenahay mar labaad hambalyo ciid wanaagsan Allah idin barakeeyo meel walba oo joogtaan